kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona shirka madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay 40 cisho oo doorashada Soomaaliya lagu qaban doono iyo caqabadaha farmaajo waqtiga kan oo la kulmi doona ayaan daawadayaal warkeena idinku soo gudbin doona sidoo kale midowga musharaxiinta go'aankaasi waxyaabaha ay ka soo saareen ayaa sidoo kale warkeena ku daawan doontaan qodobadaasi qodobo kale oo xiiso badan oo ku aadan dagaal ka socdo duleedka Cadaado iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe loo saar janaalka isla markaana wararkeena like iyo share-kii commentiga dhow dadaala warmurtiyeed ayaa laga soo saaray shirkii Afisoni iyadoona 40 cisho doorashada Soomaaliya lagu qaban doono warmurtiyeeda laga soo saaray shirka golaha wadatashiga qaran ayaa lagu muujiyay qodobo dhowr ah oo ay dood adag ka taagneed 6 cisho ee la soo dhaafay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa saxaafadda u akhriyay warmurtiyeedkani soo baxay iyadoona hadda ay si gaar ah doorashada Soomaaliya loo dejin doono ka hor intaan doorashada kursi kasta la qabanin waa in la cadeeyaa magacyada xubnaha guddiga doorashooyinka galaya iyo sidoo kale saxaanshaha odayaasha dhaqanka guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed oo loo madax banaaneynayay qabashooyinka doorashooyinka in guddiga doorashooyinka ay xaqiijiyaan ergada dooranaysa xildhibaanada in la hubiyo kuwii odayaasha dhaqanka usoo gudbiyeen iyo in duubabka dhaqanka iyo beesha iyo caaqilada la siiyo oo aanan lagu fargelin kuraastooda waa in doorashada kursi kasta warbaahinta loo siiyaa in ay goobjoog u noqoto si ay u noqoto mid hufnaan ah si loo ilaaliyo wada shaqeynta guddiga doorashooyinka in lagu shaqeeyo habraaca doorashooyinka go'aankani hadda soo baxay ayaa waxa uu muuqanayaa mid dardargelin kara doorashooyinka Soomaaliya inkastoo guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ay hadda u muuqanayso mid taageero cad waqtiga shirka loogu muujiyay sidoo kale qodobka xasaasiga ah ayaa waxa uu yahay in doorashada amniga guud ee Amisom ay toos ugu wareegayso inkastoo aan lagu cadeynin in doorashada hal magaalo lagu qabanayo qodobada ay soo saareen guddiga doorashooyinka amarada kala duwan ee la siiyay ayaa hadda waxay u muuqanaysaa in ay tallaabooyinka adag ee hadda ay ku dhawaaqeen ay noqon karto mid saameyn badan ku yeelanaysa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kooxdiisii isaga ayaa hadda waxay aad ugu mashquulsan yihiin sidii go'aan waliba ay u bedeli lahaayeen arrimaha doorashooyinka ee hadda jira ayaa waxaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu noqonayaa mid si gaar ah u dardargelin karo doorashada Soomaaliya ayaa 40 cisho gudahooda lagu soo gabagabeyn doona 15 Janaayo bishaan ku guda jirno ee sanadka 2022 ayaa waxa ay u muuqanaysaa in ay aad loo dardargelinaya wararkii ugu dambeeyay aan ku helayna waxay sheegayaan in Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ay dardar xoogan ay la imaan doonaan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka waxaa suuragal aan noqon doonin in doorashada 40 cisho lagu soo gabagabeeyo maadaama cawaaqib xumo iyo sidoo kale dhibaatooyin ay ka jiraan deegaanada maamul goboleedyada qaar haba ugu horeeya maamulka Puntland oo dagaal kula jiro ciidamada BSF-ta sidoo kale dagaalka siyaasadeed ee ka dhex taagan beelaha dega gobolka Hiiraan maamulka Hirshabelle gudihiisa iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo xaaladda gobolka Gado si la mid ah waxaa jira cabashooyin kala duwan ee beelaha ay qabaan inkastoo aan lagu cadeynin shirka madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo la rabay in lagu xalliyo dhammaan khilaafyada kala duwan ee waqtiga kan ka jira qaybo kamid ah deegaanada maamul goboleedyada dalka ayaa waxa u muuqda in aan wax natiijo ah oo sax ah ka soo bixin maadaama shirka la filanayay in lagu cadeeyo in doorashada hal magaalo lagu qabto Cali Guudlaawe Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waqtigan waxay ku jiraan xaalado dagaal oo aad u adag inkastoo ay mararka qaarkood dhibaatooyin kala duwan ay bulshada ay la kulmi karaan haddana waxaa dowladaha caalamku ay aad u taageerayaan go'aankani ay soo saareen
madaxda maamul goboleedyada dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo gudoomiyaha gobolka banaadir. Waxaa bilihii ugu dambeeyay si gaar ah loo hadlayay sidii loo dardargelin karo arrimaha doorashooyinka, islamarkaana tallaabo kasta ee noqon karto mid muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed. Waxaa qof walba oo Soomaali ah ay u dhagtaagaysay maalmihii ugu dambeeyay sidii shirkani uu isbedel wanaagsan ugu noqon lahaa arrimaha doorashooyinka. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Cali Guudlaabe waxyaabaha ay filanayeen ma uusan kasoo bixin shirkani, hase ahaatee Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa waxay u muuqanayaan kuwo natiijo xumo ka muujinaya shirkani dhowaan Muqdisho kusoo gabagaboobay, maadaama qodobada qaar Farmaajo ay dhabarjab aada u xoogan ay ku yihiin. Haddii ay sidaasi wax waliba ay sii ahaadaan, xaaladda doorashada ayaa la dadejin doonaa. Amisom ciidamadeeda ayaa la geynayaa gudaha filla Soomaaliya maadaama laga cabsi qabo inuu dagaal u dhexmaro Maxamed Xuseen Rooble iyo Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Ciidamadani ka tirsan Midowga Afrika ee Amisom ee ka howlgala Soomaaliya ayaa hadda waxay noqonayaan kuwa awoodda guud ee ammaanka madaxtooyada Soomaaliya la wareegi doono, waxaana arrimaha kala duwan ee waqtiga kan jiri kara ay noqonayaan kuwa saameynadii ugu dambeysay madaxweyne Farmaajo oo qorshayaal cajiib ah waqtiga kan doonaya inuu ka dhex sameeyo madaxtooyada ay noqon doontaa mid xaalado kala geli karta dalka. Doorashada waxa kasoo bixi kara lama oga, hase ahaatee waxaa suurtagal inaan noqon doonin in 40 cisho lagu soo gabagabeeyo shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee ku yeesheen go-aankaasi lagu sheegay. Doorashada iyo sidoo kale go-aamadeeda ayaana u muuqanaysa in ay weli madaxda maamul goboleedyada ay ku taagan yihiin, inkastoo Siciid Dani iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo si lamid ah Cabdicasiis Laftagareen ay doorashada u fududahay, laakiin dhibaatada ugu badan waxay ka jirtaa in doorashada dhankooda ay sida wanaagsiyaha badan ay kasoo gabagabowdo Cali Guudlaawe iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, maadaama beelaha dega gobolada Hiiraan iyo Gado ayna ku qanacsaneen siyaasadda madaxdaasi aan soo sheegnay. Dhinaca kalena midowga musharaxiinta ayaa waxay soo dhaweeyeen shirkii lagu soo gabagabeeyay maanta Muqdisho. Golaha midowga musharaxiinta ayaa si cad u sheegay inay soo dhaweynayaan islamarkaana ay noqon doonto doorashada mid faa'iido fara badan bulshada Soomaaliyeed ugu jiri doonto. Dardargelinta doorashadana ay noqon doonto mid iyaga dhankooda ay dadaalo badan ay ka bixin doonaan, inkastoo midowga musharaxiinta qodobo ay dalbadeen shirkaasi gebi ahaanba aan lagu soo bandhigin oo ku aadaneed sidii kuraasta qaar dib loogu laaban lahaa. Tanina waxa ay saameyn badan ay mar kale ay geli kartaa xaaladaha kala duwan ee dalka. Dhanka kalena wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Cadaadana waxay sheegayaan in duuleedkeeda ay hadda ku dagaalamayaan ciidamo ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale kuwa maamulka Galmudug. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Cadaado ayaa waxay sheegayaan in halkaasi dagaal xoogan uu ku dhexmarayo ciidamada daraawiishta Galmudug, iyadoona dagaalkani uu yahay mid Al-Shabaab iyo daraawiishta ciidamada Galmudug ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan. Deegaankani la yiraahdo Cadde Kibir oo qiyaastii Cadaado dhanka bari kaga beegan 60 kiiloomitir ayaa dagaalka waxa uu yahay mid aad u xoogan, iyadoona aan la ogeyn dagaalka saameynta uu dhalin karo, iyadoo wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanka ay sheegayaan in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay dagaalka ay ku soo qaadeen ciidamada daraawiishta maamulka Galmudug. Maalmihii ugu dambeeyay Al-Shabaab iyo ciidamada Galmudug ayaa ku dagaalamayay deegaano dhowr ah oo maamulkaasi gacanta ku hayo. Guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jecelnahay waa naga intaa. Haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, wararkeena la like, share, comment-ga nagu dadaala. Waad mahadsantihiin daawadayaal.